بسم الله ما أنت وحن صوب وقلنا أستاذ عبد الرحمن عراية تاريخ مركا أنتي بقول لابنا أستاذ كوحة وها معلمين تبقى المستقيم ده أو المدحن وسنة سيد أدار كيسان أستاذ عبد الرحمن عراية وها وكم ده معلمين تبقى المقدسة وحكدها جارهان إسكولك ليدهو هو يحمر أستاذ كإن مدة يوم معلنها وأن أختين حالة معلمين تأكسوا جيهين إيو سيد إيهين macallimiinta waxay leeyihiin qiimo iyo tixgelin iyo sharaf ay leeyihiin waayo waxay soo saaraan ubadka Soomaaliyeed waa kuwa u taagan har iyo habeen in ubadka Soomaaliyeed ay wax baraan una halgamaan kana saaraan jahliga Ustaad Cabdiraxmaan Caraaye gurigiisa ayaan maanta ku soo booqanay waa dhibane la xanuunsan cudurka dhiikarka iyo sokorowga sida aad arkaysaan Ustaad Cabdiraxmaan Caraaye waxa laga jaray lugta midigta ayaa laga jaray 2016 waxa sababay jaritaankan sokor iyo dhiikar isla kacay ayaa sababay 2018 markay ahayd waxa laga jaray lugta kale ayaa laga jaray 2018 oo sanadkan ahayd mana haysto wax daryeel ma haysto waxa ubad ma uusan dhalin waa isaga kaligiisa hooyadii aabihii iyo walaalihii ma nool wax talo ma noolo waa isaga kaligiisa wuxuu u baahan yahay waa ustaad garab qabasho u baahan in la garab istaago macallinku waa dhibane waxa ma haysto waa kaligiisa wax uu dhalay ma jiro waa dareemi kartaa qof aan waxba dhalin maanta sida uu yahay iyo dareenkiisu sida uu noqon karo maanta ma haysto wax garab istaago oo ka dhaqo saxarada ama meelaha fogfog u wada ama u sheekeeyo ay ma haysto Ustaad Raxmaan waa dhibane waxa uu ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed in loo gargaaro si gacan loogu qabto noloshiisana loo kafaalo qaado ayuu u baahan yahay cid alla cidii wax awoodi karta ka damqan karta macallin Soomaaliyeed macallinka Soomaaliyeedna waa kaabaha bulshada waa jahliga mid kala dagaalamo Ustaad Raxmaan waa dhibane ku soo dhawow Ustaad Raxmaan Ustaad Cabdiraxmaan goorma ayuu kugu dhacay dhibkan labada kun lix iyo tobankii ayuu dhibkan ku dhacay dhibka kale lugta kale goorma ayaa 2018 waa ustaad ma hadli karo hadalka ayaa ku adag waxa sababayna waa dhiikarka iyo sokorta mana hadli karo hadal fiican ma hadli karo ustaad bulshada Soomaaliyeed maxaa ka codsanaysaa maadaama aad tahay macallin qaali ah oo sumcad ku leh bulshada dadka Soomaaliyeed sumcad iyo wanaag ku dhaxle waxa uu leeyahay hadalkiisa ninkii wax ay qaban karo oo walaal ah oo muslim ah oo dareen iyo walaalnimo jacayl ay ku jirto Soomaalinimo ay ku jirto in wax la ii qabto la ii kaalmeeyo tacaawun la isiiyo ayuu u baahan yahay marka ardayda Soomaaliyeed dhammaan ardayda waa isku wada midka wax u dhigto iyo midka aan wax u dhiginba dhammaan ardayda waxa weeye macallimiintu tixgelin gaar ah ayay siiyaan dhammaan ardayda ama ardayda Soomaaliyeed ku sugan magaalada Muqdisho ama goobaha waxbarashada wax ka barata maxaa ka codsan lahayd inay wax ii qabtaan ardayda Soomaaliyeed wax ii qabtaan ii gurmadaan ayuu ka codsanayaa okay Ustaad Raxmaan sidee hadii lagu baahdo in lagu soo xiriiro gooba lagala soo xiriiri karo miyaa jira telephone numberka furaha 5 صدن يا سدح سديتن يا لح كنتن يا لابو وما سنتا أستاذ رحمن جزاك الله خيرا بدل خير قبا إنو كسي عافما دق إنو كسيو أي رب سبحانه وتعالى كبرنا وأنا كون قرمان دونا إن شاء الله تعالى أستاذ رحمن عراية ومعلن قالي كو بلشدة الصوماليات جارهان أرضية الصوماليات أيو قالي كو يهي ومعلن إن مدة wax soo dhigayay ardayda Soomaaliyeedna soo baray waliba ardayda uu wax baray waa kuwa hadda jaamacadaha ka baxay hay'adaha u shaqeeyo isbitaalada ka shaqeeyo shaqooyinka ugu wanaagsan haysta mana oga macallinkooda inuu xanuunsan yahay waxaan dareensiinayaa in macallinka in muddo uu xanuunsan yahay ayna dareemaan dhibka macallinka haya in la garab istaago waliba dhab ah in la garab istaago ayaan ka codsaynaa ardayda Soomaaliyeed iyo waliba qaasatan dadka bulshada dareenka iyo qeyrka jecel Cabdiraxmaan waxaan kugu wareejinayaa deeqdan Rabbi subhanahu wa ta'ala
ayaa kuu soo dhiibay weliba waxaana lagu soo mariyey dad ayaa lagu soo mariyey dadkaasi ayaa kuu keenay deeqdaani waa deeq adigu aad waxay nafsadaada ay u baahan tahay wax ku iibsanayso insha allahu tacaala deeqdaani allah kuu barakeeyo amiin amiin